وبركاته وأنا إلياس عبد القادر أبو بكر إلياس كلمي كسر دوالة channel كينا موضوع ما تنكال دونا waxa uu aad u quseeyaa dumarka Soomaaliyeed waayo maxaa ku dhici kara gabdhuhu markay gurkoodii koowaad ka halaabo ama uu ka xumaado in badan oo kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed iyo kuwa caalamka ku sugan intaba waxay guursataa in nolol wanaagsan ka hesho waliba guur farxad isan oo iyadu gaar u ah balse kuma fikirto in ay noqonayso gabar la furay ama garoob ah si kale aan u iraahdo in uu ka burburo reerkeeda laakiin in yar ayaa ka badbaada arrinkaasi oo ah kuwoodii caqliga leh isla markaana iskana ilaaliya dhagar kasta oo ku soo wajahan gurigooda kana iman kara saddexda dhinac ee ah asxaabteeda qaraabadeeda iyo ehelka wiilka ay u dhaxdo oo ay ku socoto fikir saliima isla tashi iyadoo ninkeeda ay ka amar qaadanayso una sabrayso ninkeeda waayo guriga waxa uu ku dhisan yahay waa iyada oo haddii ay sabarto runtii gabdhaha markii uu guurkoodii koowaad uu ka halaabo waxay nugul u noqotaa dhibaatooyin badan oo aysan u dulqaadan karin kuna qasbi karta in ay nolosheeda wacnayd ay isbedesho iskuna bedesho mid ka fool xun midii hore waayo waxaa damcaa dhagarqabe kasta cadow kasta waa ay u jabtaa iyadoo isleh dhiso nolol kale oo qurxoon oo tii hore daanta balse ragga magaca la wadaaga ee kuwoodii wuxuushada ah ayaa ku ciyaara dumarka beenta u sheega misna ku qasba waxaysan jeclaysan dumarka qof kamid ah qoyskiisa lagu sameeyo xumaato nolosha ayuu dhaafsiinayaa ama waa u dilayaa ama dhibaato ayuu ku sameeyaa qofkaasi isagiina ayaa ah midka dumarka u horseeda xumaatada waxaa dhagaha ku dhacaya markaad bulshada ku dhex jirto ama aad saaran tahay gaari rakaab ah dumar badan oo ka cabanaya ragga oo waliba bulshada dhexdooda ku dhexdhahaya ragga waa beenalooshin lama aamini karo ogow haddaba taasi waxaa ku qasbay ragga magaca la wadaaga walow ragga ay isdhaamaan sidoo kale iyagoo maraya dhibaatooyinka dunida ugu badan ayaa haddana marna waxay doonaysaa inay mustaqbal wanaagsan ay yeegleeshaan mar kale laakiin fursadaasi ay u diidan yihiin rag dhamac been ah geliya hablahaasi walaalahooda ah kadibna dan gaar ah ku falista kuna ciyaara mustaqbalkooda hooyanimo aakhiradooda iyo waliba maskaxaanba kuna beera walwal iyo walbahaar haddaba raggaasi waxaanu leeyahay bahdilka ka daaya gabdhihiina iskana ilaalsha inaad furiinka kula degdegtaan oo kula kaftantaan iyo guurka labadaba aad kula kaftantaan iyo guurka labada bil kadib dulqaad u yeesha dabeecadaha dumarka waayo waynu ognahay in ay iska dabeecad qalafsan yihiin balse xanuunka ay nagu soo korsheen iyo midda aynu u dhaxayno ayaa ka xanuun badan waxaan in badan la hadlayaa waa kuwa magacayna la wadaagaya ee ku raaxaysanaya ilamada dumarka ee la dhashay ogsoonow waad dhali doontaa oo ay ku dhashay wayna kula dhalatay haddii aad ka heshay muuqaalkeena fadlan share garay oo subscribe inoo saar haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena mahadsanid